waxaa shalay toole 32 sariirood oo nooca bukaanjiifka soo gaareen hospitaalka guud ee degmada Baxdo waxaa milkiyadooda la afsoon dhibay gabdha muxsiniin ah oo ku nool dibadda dalka waxaa la wareegay sariiraha guddiga gacanta ku haya hospitaalka ugu horeyn waxaa u mahad celiyay una duceeyay gabdhaha Sheekh Maxamuud Maxamed Iidle Axmed Xaashim Maxamed iyo waliba Xasan Macalin Nuur oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha hospitaalka iyo waliba odayaasha deegaanka. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan u ducaynaynaa una mahad celinaynaa isbitaalka degmada Baxdo sariiro gabdha Soomaaliya ay soo dhiibeen oo samafalayaal ah sariirahaas oo yimid oo ah 32 sariirood oo gabdho meelo badan oo adduunka dalalkiisa ka mid ah kala jooga sida Mareykanka iyo Canada oo kaleeto Jarmalka oo kaleeto ay soo dhiibeen. waxaan leenahay waa gacantii koobaad oo soo gaartay isbitaalka degmada Baxdo markuu dhamaaday ka bacdi waa tii koobaad markuu dhamaaday ka bacdi oo soo gaarta way idinkaga mahad celinaynaa. ilaahay agtiisa jaasi fiican Allah idinka siiyo sida aad u dadaasheen rabbi ha idin dadaalo ilaahay agtiisa ha idinkaga dadaalo ilaahay sawaabka oo jasiiraha laba Allah idin siiyo waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka qayb galay guud ahaan isbitaalka hadday dalka joogaan hadday dibadda jiraan hadday jaaliyad yihiin dadkaasaan u mahad celinaynaa. qaas ahaan waxaana soo gaaray 32 sariirood oo sariiro khaali oo wanaagsana oo qiimo gala. waxaan leenahay dadkii soo dhiibay ilaahay xaggiisa mahad ka gaar waa mahadsan yihiin. waxaan kaloo leenahay ilaahay ha ka amaal mariyo. waxaan kaloo leenahay walaalayaalow isbitaalkan dadkii hor dhisay oo kharashka geliyay iyo dadkii dib isu hayay oo yiri wuxuu say noqon doonaan isbitaalkii waa dhisan yahay waa dhammaystiran yahay wuxuu u baahan yahay qalabkii iyo agabkii iyo dadkii ka shaqay lahaa. waxaan leenahay walaalayaalow soo dadaala sida gabdhahaas khayr badan Allah siiyo risq khayr qaba Allah u furo shaqadooda Allah u barakeeyo waa dadaaleen. haddana waxaan leenahay sii laban laaba boqolka salaamaya gabdhaha yaga caruurtayadiya oo mataqaana hadii aan ku rooyahay arrinta ka soo qayb galay oo hoolka wanaagsan ka galay 14 boqolkan salaamayna. waxaan kaloo salaam u doonaynaa dadkii hore awal baritaaray oo wax ka dhisay khiyaarta dhigistaba ha ahaato waxa weeye waa dalkiina cidina oo maqna ceelna oo qodno annagu waa noo jeedaan ciroolayaal baan nahay. waxaan ka fursan weynaa niri waryaada xooggayaga iyo xoolahayaga aan gelino dad wanaagsan oo mataqaana oo wax dhisahaya oo wanaagsan oo dalka ama dawladda joogaan haysanaa. adinkana waa dhaxan leenahay loo dadaala kaligiin ma hidin gabdhahaano ilaahay ha idin karaameeyo. waxaad leedihiin dad kale aad haysatiin garab dhismaha hospitaalkan waxa uu dhamaaday bilo ka hor balse waxa uu la furmi waayay qalabyada hospitaalka oo ku yar sida uu sheegay Sheekh Maxamuud Maxamed Iidle. wuxuu dhamaysan yahay oo aan shaqo laga hayn 5 bilood ka hor shaqadiisu dhamaatay lagumana shaqeeyo wax looga shaqeeyaa ma jiraan. waa meel bannaan hal kursi ma yaal qalab xaafis ma yaal wax kale ma yaalin isfaybaar ma yaal dhaqtar ma joogo. waxaan idinka rajaynaynaa sida sariiraha aad ugu dadaasheen oo kale in aad inta ka dhimana u dadaashaan. waad mahadsantihiin jaaliyada kale dadka muxsinaanta oo masaajidka awalna wax ka dhiso wax ku dartay iyo inta hadda aan wax ku daran markaan muxsinaantana waxaan ugu baaqaynaa in isbitaalkaas in ay gacan xoog leh ka geystaan. sariirahan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee la keeno hospitaalkan tan iyo markii uu dhamaado dhismihiisa waxaana lagu wadaa inuu furmi doono dhawaanahan si loogu adeego shacabka deegaanka. saaxiibayaal waxaan ahay Cabdulwaaxid Axmed Xaashi halka igala socotiin waa codka shacabka Soomaaliyeed.